ومضيت وحدي في ظلام مجهم. قمر هناك يطوف حول الأنجم. حملت لي الأنسام في خلجاتها عقدين من زمن مضى بل أقدم. يا حسن بيت ضم في أرجائه رهط بهم من كل طيب أنسم. عشنا به زمن الجميل بفرحة آه على ذاك الزمان الأكرم. عشنا وكنا صبية نلهو به. بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إن شاء الله تعالى waxaan ka hadli doonaa maanta in sha allah infectionka iyo noocyadiisa. waxaan ku hormari doonaa in sha allah rag iyo dumarka waa kala qaadi doonaa. infectionku marka ugu horeysa waa cudur bacteria ah oo dadka ku dhaca, qoyaanna wuu leeyahay, qaleylna wuu leeyahay, inkastuu u badan yahay midka qoyaanka ah. infectionku in sha allahu tacaala qofka markuu ku dhaco wuxuu isku dayaa inuu wax badan ka baabi'iyo. awoodda raganimadu raggaynu ka hormaraynaa in sha allahu tacaala. infectionku hadduu ragga ku dhaco, hadduuna qofkaasu iska gaadhin ninka ragga ah, waxaa laga yaabaa awooddiisii oo dhan inay soo ururto. waxaa laga yaabaa xanuun xun inay ku qaado. waxaa laga yaabaa xitaa jabti iyo waxyaalo kale inuu ka qaado. waxaa laga yaabaa gale inuu ka qaado. xanuun badan buu ka qaadi karaa hadduuna qofkaasu iska gaadhin xanuunka infectionka. maxaa lagu gartaa? runtii calaamaad baan tilmaami doonaa. ninka ragga hadduu isku arkay uu dareemi karo waxaya inay infection yihiin. waxaa ka mid ah kaadidu inay gubto. kaadidu inay gubto oo kuleyl ay ku timaado waa qodobka koowaad ee ka mid ah. waxaa ka mid ah intaa wareega inay xanuunto ilaa dhabarka, inay yacni qofkii ay xanuunto ninka ragga ah oo uu maaragtay sidaa ku dareemo infection inuu hayo. waxaa laga yaabaa qaskoo kale inuu xanuuno, meesha bisqintii waxa ay ka baxaan, timaha ay ka baxaan, inuu xanuun ama cuncun uu ka dareemo, finan yaryar uu ka dareemo. waxaasoo dhan waa infection. waxaa jira wax la yihahdo prostate infection, qanjirka hoose ee dadka ku dhaca oo runtii aada u dhib badan. isagu 3 calaamadood buu leeyahay. wuxuu leeyahay kow, infectionka wuxuu kala siman yahay maadaama uu yahay qanjirka hoose oo infection ku dhacay, in uu sameeyo kaadidaasoo kale inuu gubo waa midda koowaad. midda labaad, kaadida way kala hadhaa. tusaale ahaan ninkii baa kaajaya, markuu kaajo xaashadiisii dhammaysto ayuu wuxuu isleeyahay dhaq, maadaama xaajadaada aada dhammaysatay kaadida ahayd. markuu dhaqo haddana wuxuu dareemayaa in wax kale ay ka soo socdaan ama kaadidu ay kala go' ku tahay. waa prostate infection. waxaa kaloo lagu gartaa hadduu qofkaasu leeyahay qof nolosha la wadaaga ama sawja uu leeyahay, xaqiiqatan marka allaale marka uu galmada sameeyo isagoon raaxo badanba samayn ayaa biyuhu ka soo boodaya. waa qanjirka hoose qofka u hayo. haddii qofkaasu marka qanjirka iska daweyn waayo prostate infectionka, aakhirka waxay gaadhaa inuu noqdo cancer, qanjirka ku dhaca. waa haddii xanuunka aad iska daweyn weyso oo uu kugu weynaayo. xanuunka in la iska daweeyaa muhiim ah. intuuna kugu weynaan isku day inaad iska daweyso. waxaa laga yaabaa inaad business ku mashquulsan tahay. waxaa laga yaabaa inaadan daryeelinba naftaadii, laakiin isku day intuu yar yahay inaad naftaada daryeesho oo xanuunkii prostate infectionkii aad iska daweyso. intaas waa mid. wuxuu kaloo sababaa qanjirkaasu infectionka ah
prostate infectionka la yidhaahdo wuxuu sababaa soomaalida qanjir bay u taqaanaa af soomaaliga wuxuu sababaa dhalmo la-aan. waxaa laga yaabaa ninkii oo dhali jiray oo ilmo soo dhalay oo heblo ka dhalay oo heblo kale ka dhalay inuu heblo kala guursado baashiiba iska waayo. dhalmadii waxay dilaysaa, ugxaantii bay hoos u dhigaysaa, biyaha tuuritaankoodii bay yaraynaysaa, culayskii biyuhu ay lahaayeen bay jilcinaysaa, xayayaankii bay baabi'inaysaa, wixii oo dhan bay hoos ka dhigaysaa. ilaa waa xanuun, haddaadan iska daweyn wuxuu isku dayaa inuu dilo ugxantaada xitaa inuu gaaro heeruu ku dilo. marka isku day inaad insha allahu tacaala qanjirka markaad aragto aada iska daweyso. infectionka caadiga ah kaadida wuu gubaa, qofka waxaad arkaysaa calaamaad goonigiisana leeyahay. niyadda markay kaadida soo gashaba, niyadaaday soo gashay, markay saa u soo gasho waxaa laga yaabaa adoon musqusiiba gaarhsin in kaadida ay kaa timaado. waxaa laga yaabaa maanta o dhan magaalada markaad wareegeysay hadday kaadi ku qabato inaadan yani wax ayna kaa imaan dhaqso ah, laakiin markaad musqushii u dhowaato ee musqushiiba niyadda soo geliso waxaa is leedahay infectionkan iyo musqusha maxaa isku xidhay, markiiba kaadidii waa ka soo boodeysa. kaana saasa lagu yaqaanaa. isaga laftigiisu hadduu weynaado xanuuno badan buu gaadhaa, jabti wuu gaadhaa, allahuma mustacaan. waxaan la yidhaahdo wuxuu gaadhaay oo kale waxaan galaha loo yaqaano soomaalidu ay u taqaano waa jabtidii oo xumaatay un. waxaan galaha loo yaqaano oo dhabarka ku dhaca dhalmaantana dad ka dhiga wuu gaadhaa. marka qofku ha isku dayo inuu iska daweeyo. xininyahoo kale wuu ku dhacaa prostate infectionka, xiniyaha wuu dhuudhuubaa, caatuu ka dhigaa, mid wuu yareeyaa midna sideeday ahaataa. marmar balaq buu ka dhigaa xiniinyaha, marmar shahwaa ka timaada, markuu kaajo shahwo yaroo cad baa ka imaanaysa. marka xanuunkaas waa xanuun aada u daran run ahaantii. galmadaadiibuu saameynayaa, awooddaadiibuu saameynaya raganimo. waa inaad isku daydaa haddii aad dareento inaad iska daweyso. haddaynu qeybta ragga halka kaga baxno waxaynu gelaynaa qeybta dumarka. dumarku infectionka ku dhacaa isna waa kaadidaas oo kale, iyaduna waa sidaas oo kale, waa la mid sidii rag oo kale. oo markay niyadda ay keento musqusha agteedii oo kaadidii ay qabato iyadana saas oo kale wuu ka soo baxsanaya. waxaa usii dheer iyada qoyaan bay yeelanaysaa qeybta hoose taranka. waxaa laga yaabaa qoyaan inay dareento, marmar wax isjiidaya inay dareento, cuncun inay hoos ka dareento way dhici kartaa, intaa wareegaa inay xanuunto way dhici kartaa, dhabarku inuu xanuuno way dhici kartaa. bal iska dhaaf dhalmada isna wuu la dagaalamaa. iyada un waxaan ku dhicin prostate infection, qanjirka iyada kuma dhacayo laakiin raggu khaas u yahay. marka gabadha muslimadana waxay dareemi kartaa caadada way wareerin kartaa, xaydkii oo kale way khaldi kartaa. haddii infectionku uu weynaado wuu khaldaa. inta badanna wuxuu isku dayaa inuu maaragtay qoyaan iyo wax ka keeno. waxaa kaloo jirta qoyaanku markuu ka yimaadee ku badan yahay waxaa dhici karta infectionku inuu ku noqdo buro biyood wax la yidhahdo. burada biyoodka waxaa sameynaya infection meeluu ka baxo waayey, wuu iskuusayaa, buroo kaleu sameynayaa, qoyaan buu hoos ka daadinaya. marka qofkii marka waxaa leeyahay hoosba bura biyood baa kaaga taalla, qoyaankana wuu dareemaya. intaa wareegana xanuun badan ayay ka dareemaysaa, kaadidaana way la baxsanaysaa. sheekh farxaan wuxuu yidhi gabadhana dawaan siinaa, adigana dawaan ku siinaa. gabadhii dawadii waa uu siiyey, dawa musubyaano gabadhi siiyey, anigana dawo i siiyey. 3 biloodaa waday uu yidhi. 3 bilood markaan qaatay bishii koowaad waxaa igu dhashay wiil, maasha allah, baaraka allah. marka insha allahu tacaala xanuunka infectionka intaasaan kusoo koobaynaa. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.